Bob Marley oo ku caan baxay muusiga reegada una dhashay Jamaica ayaa maanta ku geeriyooday cisbitaal ku yaala Miami daadiisuna waxay ahayd 36 jir. With his band The Wailers, he remains one of the most inspiring and moving singers of all time. From the moment Bob walked out on the stage, it was just magical. It was just markii uu horeysay Bob soo istaago mashrax waxay ahayd arrin aad iyo aad noo soo jiidatay dadweynaha. Bob Marley waxa lagu tilmaami karaa nin sixir ku ahaa fanka. May 11 1981 Bob Marley wuu dhintay isagoo ku geeriyooday cisbitaal la yiraahdo Cedars of Lebanon Hospital Miami Florida ku yaala. Daadiisuna waxay ahayd 36 jir. tan iyo markii uu dhintay Bob Marley dhimashadiisa waxa loo aaneynayay inay dawladda ka dambeeyeen. Bob Marley waxa uu ahaa nin aad caafimaadkiisu taam yahay isla markaana cuni jiray cuntooyin nadiif ah ama caafimaad qaba. isticmaalka muujinaya cadeymaha caafimaad ee uu Bob Marley maray waxaan doonayaa inaan ogaado sababta uu dhintay Bob Marley. haddaba Dr. Michael Hunter ayaa howlgelaya ama u kurgelaya sidii uu heli lahaa sababtii uu dhintay Bob Marley isagoo oo baaritaan fara badan sameeyay. Dr. Michael Hunter waa doctor aad u weyn oo khabiira kana soo shaqeeyay magaalooyin kala duwan isagoo soo baaray baaritaano dilal hore u dhacay. waxa aan leeyahay khibrad badan oo muddo ka badan 20 sano taasoo aan baaritaano kala duwan aan ku soo sameeyay dad hore u dhintay. marka kiiskan waxaan isleeyahay waan u qalmaa inaan soo saaro wixii ka dambeeyay. haddaba September 20 1980 Access Hotel House 7 bilood ka hor dhimashadiisii Bob Marley waxa uu si diyaariyay inuu ka tago qolkii uu ka deganaa hotelka isagoo isu diyaarinaya si uu u sameeyo jimicsiga dhanka orodka. haddaba Bob Marley ayaa sanado yar oo kooban wuxuu soo saaray labadiisii heesood ee kala ahaa No Woman No Cry and Buffalo Soldiers kuwaasoo noqday heeso aad adduunka looga xiiseeyo kana dhigtay ninkii ugu horeeyay Jamaica kaasoo superstar ku noqday dhanka muusiga reegada. waxaanu ku caan baxay jeclaanshaha uu jecel yahay dhulkiisa hooyo. Bob Marley waxa uu ahaa nin aad u wanaagsan aan ahayn dadka xiiseeya ama ka shaqeeya dantooda oo keliya. noloshaydu waxay muhiim u tahay sida dadka kale noloshoodu ay muhiim u tahay. noloshayduna waxa weeye adduunka. Bob Marley waxa uu ahaa nin haddaba muruqyo yaryar. weydkiisa waxaa lagu qiyaasi jiray 155 pounds. jir ahaan Bob Marley waxa uu ahaa nin caadi iska yahay jirkiisu. Bob Marley mana ahayn nin sameeya exercise aad u badan. sidoo kale Bob wuxuu ahaa nin cabbi jiray khamriga laakiinse khamriga uu cabbi jiray aad uma badnayn waxaanu qaadan jiray cunto dheeli tiran. waxaana ka mid ahaa cuntooyinka uu qaadan jiray ay u badnaayeen khudradda. haddaba Robert Nesta Marley waxa uu dhashay February 6 1945 ayaydii waxay ahayd gabadh beeraley ah. aabihii waxa uu ahaa 60 jir markii uu hooyadii guursaday iyada oo lagu guursaday hooyadii da'da 18 jir. aabihii waxa uu ahaa nin ka soo jeeda gobolka Scotland ee dalka Ingiriiska.
aabihii waxa uu ahaa nin caddaan ah halka hooyadii ay ahayd gabadh Jamaican ah oo madow. Bob Marley waxa uu aad u xiisayn jiray ciyaarista kubadda cagta halka ay daba socotay gitaarka inuu isna ku ciyaaro. inkastoo ahaa Bob Marley nin aad u xiiseeya kubadda cagta haddana waxa uu bilaabay inuu ku ciyaaro gitaarka. Bob Marley muusigiisu waxa uu hana qaaday markii ay u soo guureen qoyskoodu magaalada Kingston ee dalka Jamaica ahna caasimadda Jamaica. Bob Marley waxa uu awood u lahaa inuu sameeyo muusiqiyo ama codad kala duwan oo dhanka gitaarka isagoo shaqadiisii ugu horreeyay ka bilaabay gitaarka. 1964 Bob Marley waxa uu ka mid noqday 19 jirka ama qofkii ugu da'da yaraa ee noqda superstar. September 1980 Bob Marley dhimashadiisa 7 bilood ka hor isagoo ku sugan agagaarka Central Bank ee magaalada New York. Bob Marley waxay ahayd maalintiisii ugu horreysay ee uu kansarku hareelay. Bob Marley waxa uu joogteyn jiray orodka guuclada ah isaga iyo saaxiibkii. Bob Marley si dhaqso ah ayuu ugu dhacay dhulka iyadoo laga qabtay dhanka cunaha. Bob Marley ayaa dhowr daqiiqo dhulka yaalay. sida laga soo xiganayo riboorkii uu noo keenay Bob Marley ahayd dhacdadii inuu ku dhacay Bob Marley dhulka sida ugu dhaqsaha badnayd. waxaanu noo sheegay inuu ku adkaaday hadalku. calaamadan ku adkaanshaha hadalkuna waxa weeye calaamad ka mid ah inuu jirkiisu meel ka mid ah ay si xun shaqaysay. waxaan helay caddaymo muujinaya dhicitaankii uu dhulka ku dhacay Bob Marley taasoo ah caddaymo caafimaad oo aan sameeyey. aanan ka helnay wixii sababay inuu Bob ku dhaco dhulka taasoo ahayd birta loo yaqaano lead birtaasoo ay ka buuxdo sun badan. Jamaica sanadihii 70-meeyadii waxaa ka dhacday doorasho sababtay khalkhal siyaasadeed taasoo dhex martay labada xisbi ee kale ah BNB iyo JMB. labada xisbi ayaa waxa ay ku dagaalameen dalkaasi iyadoo halkaasi ay sababtay macaluul aad u badan. haddaba Bob Marley ayaa waxa uu ka mid noqday mid ka mid ah taageerayaasha xisbiga BNB 4 sano ka hor. October 1976 goobta loo yaqaano Hope Road Studio ee ku yaala Jamaica ka hor 5 sano dhimashadiisii. Bob Marley waxa uu ka mid noqday mid saameyn weyn ku leh dalkiisa. Bob Marley wax yar kadib waxa uu yimi ra'iisul wasaarihii dalkaasi Manley la oran jiray isagoo ka dalbaday inuu ka caawiyo sidii dalka nabad loogu soo dabaali lahaa. runtii waxay ka dalbadeen in aad loo sii wado muddada doorashada lagu qabanayo balse taas Bob kuma qancin. Despite the volatile political atmosphere, 2 months later, Bob honors inkastoo xaaladdu ay aad u cakirnayd haddana Bob 2 bilood ka hor dalabkiisii kaga yimid ra'iisul wasaaraha ee ahaa inuu qabto show ayaa ku adkaaday. wax yar kadib Bob ayaa la soo weeraray waxaana lagu soo weeraray xabado halkaas oo ay ku dhaawacmeen Bob iyo xaaskiisii. waxaana xabadu kaga dhacday Bob gacanta. Not a sound
And although they are never identified, it's believed they had links to the rival political party. nimanka Bob soo weeraray waxaa la xiriirinayay xisbigii ka soo horjeeday weerarka xisbigii ka soo horjeeday Bob ayaa la xiriirinayaa inuu ka dambeeyay weerarkani Bob laakiin waxaa cajiib ahayd markii dhakhtarka la geeyay inuu diiday Bob in laga soo saaro xabadda kaga dhacday gacanta bidix taas oo uu diiday in Bob laga saaro xabaddan Bob ku dhacday waa sababtay inuu Bob dhiiggiisu uu noqdo mid sumaysan kaas oo Bob ka dhigaysa in dhiiggiisu hadda sumoobay si kastuu Bob uga dhaawacmay gacanta haddana taasi kama hor istaagin inuu Bob ku ciyaaro gitaarkiisii you read deeper into what happened, he's told that, you know what, if we do remove it, he may not be able to play guitar again. This guy's music was his life. So I think this decision makes a lot of sense from his perspective. So did Bob's total commitment to his music ultimately lead to his death? haddaba Bob Marley ayaa ka mid noqday mid ka mid ah superstarrada ka soo baxay dalka Jamaica isagoo soo saaray muusigiyo reega oo fara badan kana noqday caalamka xidig haddaba 1981kii bishii May ayuu Bob Marley dhintay isagoo 36 jir ah haddaba 35 sano kadib dhimashadiisii Dr. Hunter ayaa isku dayay inuu baaritaan ku sameeyo sababta uu Bob Marley u dhintay haddaba waxaan doonayaa isku daygii dilka qorshaysnaa ee loo geystay 4 sano ka hor dhicitaankii ku dhacay dhulka maxaa keentay sababta uu Bob Marley ugu dhacay dhulka 4 sano kadib markay xabaddu ku dhacday haddii uu Bob u dhacay sabab keentay xabaddaas inay ku sababtay sun raacday dhiigga waxaanan odhan karaa in ay sababtay suntaasi inuu dhulka ku dhaco Mr. Bob Marley haddaba September 22, 1980 7 bilood ka hor dhimashadiisa intaanay gaadhin Bob Marley waxa uu kula kulmay doctorkiisa khaaska magaalada New York isagoo oo maraya baaritaan caafimaad oo kala duwan taas oo la xiriirta sababtii uu Bob Marley dhulka ugu dhacay marka uu qof ku dhaco dhulka sida Bob oo kale doctorka waxa la gudboon inuu sameeyo baaritaan dhanka neurology-ga ah waa in la baaro Bob ama qofka sidoo kale dhulka ku dhaca maskaxdiisa maqalkiisa iyo araggiisa iyo waliba awoodiisa si loo ogaado sababta ka dambaysa qofku inuu sidoo kale ugu dhaco dhakhaatiirtu markii ay sameeyeen baaritaan neurology-ga ah waxay markiiba heleen sababtii uu Bob Marley dhulka ugu dhacay maskaxdu waxay ka samaysan tahay unugyo yaryar kuwaas oo u koraya si aayar ah waxa kaliya ee la soo jeediyay ayaa ahayd in laga saaro Bob waxa ku samaysmay maskaxdiisa taas oo looga saarayo iyadoo la qalayo sababta Bob loo qalayo ayaa noqotay in madaxa kansar ka haleelay doctoradii waxay bilaabeen baaritaano joogto ah taasoo lagu eegayo Bob maskaxdiisa Bob showgiisii u dambeeyay ayuu hadda dhigayaa runtii waxay habeenkaasi habeen aad u weyn waayo waxay ahayd showgiisii ugu dambeysay ee Bob Marley 48 saacadood gudahood waxaan qorsheynay inaan kala qayb qaadano showga maxaa yeelay waa waxa uu isagu go'aansaday Bob waxa uu ahaa nin aad iyo aad fannaan u ah taasoo bulshada caalamka ay indhihiisa soo jiiteen Bob la qabsashada muusiga waxa uu bilaabay markii uu ahaa 10 jir
isla waqtigaana waxaa Bob u bilaabmay isbeddel aad u weyn markii uu dhintay aabihii. kadib dhimashadii aabihii Bob Marley waxa uu bilaabay inuu sameeyo isbeddel ama waxa uu helay chance uu ku sameeyo isbeddel taasoo naftiisa uu ku anfacayo. markii uu Bob u soo guuray magaalada Trenton ayaa waxa uu bilaabay in uu muusiga ku ciyaaro. Trenton waxay ahayd meel aad u raf ah oo taas sidoo kale Trench area taasoo ka tirsan Kingston waxay ahayd wadnaha muusiga dalka Jamaica. Something that other people will acknowledge in him as good, and that's his music. His commitment to music over and above adversity was something he returned to time and time again. December 5th, 1976. December 1976 Jamaica ayuu ku soo noqday beertii xorriyadda Bob Marley waxaanu ku soo noqday kadib markii la isku dayay 4 cisho ka hor in la dilo. 5 December markii uu ku soo noqday stage-ka Bob Marley waxaan ahaa mid aad u cabsanaysa maxaa yeelay waxa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan taas oo ay adkeyd in la adkeeyo security-kiisa. Carl Colby was with Bob filming the events. waxaan la qaatay Bob Marley in ka yar 4 saacadood waxaana ka muuqatay Bob Marley inuu ahaa nin aad u tabcansan. waxaan la fadhiyay meel dhas badan sidoo kale waxa uu iga dalbaday inaan israacno oo dadkan ku xeeran aan iskaga tagno kadibna aan dibadda soo yaro soconno.